kusoo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin soo gudbin doonaa filim cajiib ah inta aan bilaabin filimka muuqaalka like star youtube-kana subscribe waa ku mahadsantahay daawashadaada. Australia dalxiisayaal ajaaniba oo lagu magacaabo Grade iyo Heather ayaa imaanaya dekedda si ay uga baxaan dalxiis ee ku saabsan quusitaanka gaashaaman ay kula dabaalanayaan libax badeedka. Nin alaab ka iiminaya oo lagu magacaabo Dave ayaa uga degaya in safarkii ugu dambeeyay oo libax badeedka ku cunay qof, balse rumaysan maayaan. Xilligaas hagaha dalxiiska ee Taraag ayaa imaanaya oo su'aalo weydiinaya labadooda, wuxuuna ogaanayaa inaysan qofna ogeyn inay joogaan halkan, wuuna la kaftamayaa. Kooxdu waxa ay raaceen doontii Taraag intii ay safarka ku jireen. Waxa uu ka sheekeynayaa waayo aragnimadiisa isagoo sheegaya inuu dhowr jeer ku sigtay inay cunaan libax badeedyadu, wuxuuna u sheegayaa in tan iyo yaraantiisa oo la dabaali jiray libax badeedyada, isla markaana uu leeyahay nabar weyn oo jirkiisa ku yaal. Markii ay tagaan goobta ay rabeen, Taraag ayaa bilaabay inuu biyaha ku tuuray hilib jarjaran si uu libaaxyada badda u soo jiito. Heather aad ayuu u walwalsan yahay oo waxa uu ka naxayaa waxa dhuudhuuban ee biyaha dushooda soo maraya, taasoo ka dhigaysa inaysan rabin inay quusaan. Taraag waxa uu isku dayayaa inuu dejiyo, wuxuuna bilaabayaa inuu ku heeso Baby Shark, balse ugu dambeyntii way qosasho weyn degtay. Labadooduna waxay galayaan qafiska. Taraagna waxa uu ku ridayaa biyaha, libaaxyo badan ayaana ku wareegaya Heatherna waxa ay ka argagaxdaa ilkahooda tirada badan. Grade isla markiiba wuu dejinayaa, wayna ku wada farxayaan quruxda xayawaankan waaweyn. Daqiiqada kadib labadoodu waxay ku soo laabteen doonida. Heatherna aad ayay ugu faraxsan tahay khibradeeda ay heshay. Si lama filaana Taraag ayaa midi soo saaraya waxa uuna ku dhuftaa Grade kahor inta uusan ku tuurin badda. Heather way qaylisay. Maalintii xigtay, gabar Maraykan oo lagu magacaabo Safa ayaa ku ciyaaraysay hirarka badda. Markii dambe iyadoo dukaanka cuntada ku jirto ayay maqashay nin weydiinaya fiilooyinka bateriga oo lagu magacaabo Moses, balse way ka dhamaadeen. Wuxuuna weydiinayaa Safa haddii ay hayso, laakiin waxay iska dhigtaa inaysan haysan. Kadibna waxa ay bixisaa lacag wixii ay iibsatay, balse waxay si qarsoodi ah ugu dhex qarisay koob ay wadatay markii ay xaday. Intay u socota gaarigeeda fanka, Moses ayaa ku cadaadinaya inay qaado, haddii kale inuu u sheegi doono kaashirka xatooyadii ay samaysay. Sidaa darteed Safana way ogolaanaysaa inay qaado. Intii ay socdeen, Moses aad ayuu ula hadlayaa, Safa aad ayuu u carootaa. Ugu dambeyntiina way aamustay. Markii ay gaarayaan gaariga, Moses waxay aragtaa inuu leeyahay looxyo sarfin ah, waxayna ka wada sheekaystaan jacaylkooda ay u qabaan looxyo dabaasha. Safa waxay ogaataa inuusan ahayn nin xun, wuxuuna u sheegayaa inuusan sheegi lahayn kaashirka haddii xataa ay diidi lahayd inay qaado. Waxayna ku shidayaan bateriga gaarigiisa iyadoo caawinayso, taasoo shida raadiyaha. waxayna ogaadaan inay jecel yihiin isla nooca muusikada. Habeenkii ayaa la gaarayaa iyadoo Safa ay taagan tahay banaanka guriga si ay ula sii joogto Moses. Waxa uu furaha fanka ku tuuraya daaqada guriga way ku wada sheekaystaan, wax badan ayayna iska bartaan. Daqiiqada kadib Moses ayaa jikada galaya si uu u sameeyo quraac, balse markii uu soo baxo fankii wuu maqan yahay. Dhanka kale, Safa ayaa ku sugan xeebta iyadoo diyaar u ah inay dabaalato, balse waxa ay garataa inay hilmaanto furihii fanka. Waxayna baaraysaa gaariga xamuulka ee u dhow, waxayna ka naxdaa mulkiiliye oo qof u soo diray, kaasoo ah Taraag. wuxuuna siinayaa furaha kaydka ah, wuxuuna ku ammaanayaa geesinimadeeda ay keligeed ku dabaalanayso xeebta. Habeenkii, Taraag markii uu tago, Safa waxa ay helaysaa fariin oo u soo diray Moses oo sheegaya sababta ay u tagtay. Waxayna u sheegaysaa inay rabto inay ku baashaasho hirarka hore ee badda, balse way kala walabaynaysaa markii uu weydiiyey haddii ay rabto inuu u imaado. Si lama filaana, Taraag ayaa madaxeeda ku daboolaya boorso. Safa waxay isku dayaysaa inay isaga iska celiso, balse Taraag kama sii daynayo ilaa ay mir beesho. Kadibna waxa uu ku mudaa cirbad, wuxuuna gelinayaa qaybta dambe ee baabuurkiisa, isagoo afku u xiraya sharooto oo ku dhex qariyay sanduuq loox sarfin ah. Wuxuuna kaxaynayaa ilaa dekedda, halkaas oo eyga Dave ku qaylinaya markuu arkay. Taraagna waxa uu Safa geynayaa qol doonidiisa isagoo ku xiraya qol yar. Saacado kadib, Moses oo raadinayo, balse waxa uu helayaa fankii oo kaliya. Isku daygiisii in uu waca ayaa fashilmaya, maxaa yeelay taleefankeedu waxa uu ku dhex jiraa gaariga. Dhanka kale, Safa ayaa soo toostay iyadoo silsilad gacanta ugu xiran tahay, waxaana halkaas ku xiran Heather oo hore loogu xiray. Waxa kaliya ee ku jira qolkaas waa baaldi loogu talagalay inay ku xaajo gutaan. Way qaylisaa iyadoo gargaar darbanayso, balse kaliya Taraag ayaa maqlaya, isaguna waa ku raaxaysanayaa dhawaaqa inta uu quraacanayo. Darbiga, Safa waxa ay ku aragtay magac haweeney kale oo u muuqata Taraag inuu sidan ayadana ku sameeyay. Waxayna sii raadisaa waxay ku furto qufulka, balse ma jiro wax ay helayso. Heather ayaa u sheegtay in aan qofna raadi doonin. Safa waxa ay u sheegtaa inay xaalad isku mid ay ku jiraan. Dhanka kale, Moses waxa uu socdaa shaqadiisa isagoo arka gaarigii fanka oo Safa oo la jiidayo, isla markiina waxa uu aadayaa booliska, wuxuuna u sharaxayaa in fanku uu yahay gurigii Safa, sidaa darteedna uu ka qabo shaki in la dhacay. Sargaal ayaana weydiinaya magaca buuxa ee Safa, balse ma yaqaano, sidaa darteed warbixin lama diyaari karo. Doonta dhexdeeda, Heather ayaa ooynaysa iyadoo leh mar dambe hooyadeed ma arki doono. Waxayna qirataa haddii hadalka hooyadeed ay dhegaysan lahayd inaysan ku dhicin dhibaatadan, sababtoo ah hooyadeed ma rabin inay baxdo. Iyaga oo sheekaysanaya, Safa waxa ay aragtaa in fanaanada Heather ay leedahay silsilad, waxayna weydiisataa Heather ayaana u tuurtay inta fanaanadii ka saarta. Safa ayaa isku dayaysa inay furto qunfulka kahor inta aysan furin. Taraag ayaa soo galaya isagoo siinaya rooti iyo biyo, waxa uuna fadhiistaa meel u dhow Safa isagoo ku jeesjeesaya labadooda. Markii dambe, Safa waxa ay dareemaysaa wareer iyo madax xanuun, waxayna u muuqataa Taraag inuu biyaha wax ku daray, sababtoo ah Heather way mir beeshay. Taraag ayaana soo noqday oo ka qaaday siligii kahor inta aysan Safa mir beelin. Daqiiqada kadib, Safa waxa ay ku soo toostaa iyadoo ku dul xirxiran kursi dusha sare ee doonta, halkaas oo Taraag ku diyaarinayo kaamirooyin iyo nalal. Heatherna waxa ay ku xiran tahay silsilad ku xiran wiishka doonta, wuxuuna sheegay in Safa uu hore u arkay markii ay sayfinka sameynaysay. Taraag waxa uu ka goynayaa Heather dhowr timo, iyaduna waxay bilaabaysaa inay argagaxdo. Wuxuuna ka sheekeynayaa si libaaxyada badda ay u qurux badan yihiin, isagoo ka cawda sheekooyinka qaldan oo laga sameynayo. Kadibna waxa uu wiishka hoos ugu dhaqaajinayaa Heather iyadoo qaybta sare ka muuqata si uu wejigeeda u duubo markii libaaxyadu yimaadaan. Daqiiqada kadib, libaaxyada ayaa Heather kala jarjaraya. Safa qaylo ayay
bilowday iyadoo argagaxsan. Taraagna waxa uu yeerayaa bandhigii ugu fiicnaa dunida isagoo doonaya inuu iyada duubo. Markii Saifa dib loogu celiyo qolka waxay darbiga ku qoraysaa magaceeda iyo kan Heather. Markaas ayay aragtaa meel cusub oo rinji ah wayna xogtaa si ay u aragto magacyo badan taasoo cadeynaysa in Taraag uu dad badan dilay. Qolka cuntada Taraag waxa uu u daaran muusig isagoo ku raaxaysanaya dilkii uu sameeyay. Canjaladii oo ku duubay muuqaaladii Heather waxa uu gelinayaa sanduuq oo ku qoran yahay magaceeda. Timaheedu waa ku ridaya wuxuuna dhigayaa canjalada meel ay ka buuxaan sanduuqyadii hore ee dhibanayaasha. Kadibna waxa uu soo qaatay canjalad cusub oo ku qoran yahay magaca Saifa. Biyaha hoostoodana waxa ka muuqda meydkii Heather. Maalintii xigtay Moses ayaa surfing sameynayay balse weli waxa uu ka wiilsan yahay Saifa. Dhanka kale Taraag ayaa u keenaya Saifa quraac laakiin waxa ay ku tuurtay saxankii iyadoo aflagaadaysay. Taraagna waxa uu hanjabayaa inuu ku sameeyo doono falaalkii argagaxa badnaa isagoo dhahaya libaaxyada xaq ayay u leeyihiin inay wax cunaan. Saifana waxa ay ku tiraahdaa waxa iska dhigaysaa libaax laakiin waxa tahay cayayaan liita. Hadalkaasna waxa uu dhaawacayaa isla weynidiisa kadibna wuu ku tagayaa. Markaas Saifa waxa ay aragtaa baaldiga meesha yaala inuu leeyahay gacan qabsi wayna jabisaa si ay hub uga samaysato. Fiidkii Taraag waxa uu cunayaa cunto isagoo daawanaya canjaladii mid ka mid ah dhibanayaashiisii. Kadib waxa uu isku daraa daawo ka hor inta uusan aadin qolka gabadha ku jirto. Markuu isku dayo inuu Saifa ku daro waxay qoorta ugu dhufatay gacan qabsigii baaldiga wuxuuna ku dhacaa sariirta isagoo miyir beelay. Hadda waxa ay ka qaadan kartaa furaha si ay isaga furto. Nasiib daro Taraag ayaa soo kacay oo isku dayaya inuu qabto. Saifa waa ordaa si ay albaabka u xirto sidaa darteed orda ayay sii waday. Markii ay jaranjarada sii fuulayso Taraag ayaa lawta ka qabanaya isagoo carbad ku muday. Saifa waxa isku daydaa inay ka sii baxsato waxayna orod ku tagtaa qolka xakamaynta doonta halkaas ay gargaar ka codsanayso raadiyaha balse cidna kama jawaab. Markii ay aragto markab dalxiis oo meel u dhow maraya way qaylisaa si loo badbaadiyo laakiin muusiga ka socdo markab ayaa saacid u dhawaaqaya sidaa darteed cidna ma maqasho. Taraag ayaa soo muuqday isagoo midi wata. Markaas Saifa waxa ay qabataa kaamirada iyadoo biyaha ku tuurta. Tanina waxa ay mashquulinaysaa Taraag taas oo siinaysa fursad ay biyaha ugu boodo waxayna isku daydaa inay si dhaqso ah u dabaalato balse daawadii ayaa ku faafta oo mir beeshay. Taraagna waxa uu ku qasbanaaday inuu ka soo bixiyo biyaha. Maalintii xigtay ugu dambeyntii booliisku waxa ay bilaabeen raadinta Saifa. Moses isagoo taagan xeebta ayaa fikir ku soo dhacay wuxuuna furayaa afka loo yaqaan Waves Watch oo muujinaya muuqaal toos ah oo xeebta oo loogu talagalay Saifarka. Wuxuuna raadinayaa muuqaalka habeenkii hore wuxuuna arkayaa gaari ka baxaya halka uu yaalay fanka Saifa. Markuu weyneeyo muuqaalka waxa uu arkayaa calaamad ku qoran gaariga Taraag Express isla markiina waxa uu raadinayaa shirkadda internetka. Dhanka kale Taraag waxa uu ku soo xirtay dekada si uu raashin u qaato. Saifa waxa ay ka toostaa qolka waxay isku daydaa inay qayliso balse afkeeda waxa lagu xiray sharooto. Markii uu Moses helay lambarka taleefanka ee doonida wuu wacaa balse Taraag meesha ma joogo si uu lambarka u qabto. Moses waxa uu fariin u dirayaa nambarka Taraag oo suuqa u doontay inuu soo iibsato kaamiro. Markii uu soo noqday wuxuu dareemayaa ciriiriga gawaarida wuxuuna arkayaa dalxiiso qurux badan isagoo rajeynaya inay ka mid noqoto dhibanayaashiisa xiga. Dhanka kale Moses waxa uu helayaa ciwaanka shirkadda waxa uuna aadayaa dekada wuxuuna garaacayaa albaabka doonida balse cidna kama jawaabto. Isagoo ka tagi raba waxa uu maqlayaa cod hoos ka imaanaya qaybta hoose ee doonida wuxuuna jabinayaa daaqada si uu u galo. Gacantaasoo bir ku haya ayuu doonida ka baaraya isagoo raadinaya meesha codka soo yeeri. Ugu dambeyntii waxa uu helayaa Saifa qolka ay ku xirnayd. Markii uu ka furo sharootada afka Saifa waxa ay u sheegtaa inuu booliiska waco uuna raadiyo qalabka lagu furo silsiladda. Moses wuu ordayaa isagoo tagaya qaybta kale ee doonida si uu u waco nambarka 911 laakiin Taraag ayaa ku dhuftay ka hor inta uusan wicitaanka dhammaystirin. Moses waxa uu isku dayayaa inuu isdifaaco laakiin Taraag aad ayuu u xoog badan yahay wuxuuna ka dhigay mid daciif ka hor inta uusan wicitaanka dhammaystirin. Taleefankana wuu ka tuuray. Moses asna wejiga ayuu lug kaga dhuftaa Taraag. Haddana Moses waxa uu soo qaadanayaa boorso soo wejiga kaga dhufta Taraag kadibna waxa uu isku dayayaa inuu iska celiyo laakiin uma suurtagelin. Eyga David ayaa ku qaylinaya Taraag asna waa ku qaylinaya si uu u eriyo eyga. Taraag waxa uu qunfil ku xirayaa qolka gabadha kadib waxa uu go'aansadaa inuu jasiiradda u wato doonida. Moses marka uu soo tooso waxa uu ku xiran yahay sariirta agtaala Saifa wuxuuna weydiinayaa sababta ay u baxda habeenkii ay soo dhawaadeen. Iyaduna waxa ay u sheegtaa inay dabaal aadeen. Markii ay doonida istaagto Taraag waxa uu soo galayaa qolka isagoo mar kale garaacay Saifa. Markii uu Moses soo tooso mar labaad Saifa waxa ay ku xiran tahay kursi waxayna ka codsataa Taraag inuu Moses ka daayo balse waa la iska indhataraya. Taraagna waxa uu si tartiib ugu dhaqaajinaya Moses isagoo ku xiray weeshka biyahana u sii dhaweynaya halkaas oo libaaxyada badda ay ku jiraan. Saifa waxa ay ku qaylisaa inuu iyada ku bedelo balse Taraag wuu ku maadsadaa isagoo ku sii dhaqaajinaya Moses markuu biyaha gaaro Taraag waxa uu soo qaataa kaamirada si uu u duubo laakiin Moses wuu istaagaa isagoo aan dhaqaaqin taasoo ka dhigaysa inay libaaxyadu ka tageen. Taraag oo careysanaya Moses biyaha dib ugu soo bixinaya isagoo dhowr jeer ku dhuftay midi kadibna dib ugu tuuraya biyaha. Dhiiggiisa ayaana soo jiidanaya libaax. Markaas helicopter raadinaysa Saifa ayaa soo muuqata taasoo Taraag ku qasabta Saifa iyo Moses inuu dib ugu celiyo qolka. Saifa waxa ay ka walwalsan tahay inuu Moses dhiigbax u dhinto sidaa darteed waxa ay go'aansatay inay suulka iska jabiso si ay silsilada uga saarto gacanteeda balse Taraag ayaa soo galaya qolka ka hor inta aysan sii dayn. Wuxuu wataa cunto waxa uuna ku leeyahay waxaana kaga dhigayaa libaaxa cuntadii uu cuni lahaa kadib wuu baxaa. Saifa waxa ay isku daydaa inay suulkeeda ka saarto silsiladda balse weli uma suurtagelin sidaa darteed waxa ay bilowday inay qaninto. Habeenkii Taraag waxa uu diyaar garoobayaa inuu cirbad siiyo balse markii uu qolka soo galo waxa uu ogaadaa in sariirta Saifa ay maran tahay oo suulkeedu yaala barkinta. Saifa ayaa ka soo booda meel ay ku dhuumatay waxayna ku xirtaa albaabka qunfil ka hor inta aysan bixin waxayna orod ku tagtaa qolka xakamaynta doonta si ay doonida u kiciso. Taraagna waxa uu ka baxaa qolka isagoo adeegsanaya marin kale oo degdeg ah wuxuuna gooyaa korontada taasoo joojisay matoorka. Markaas Saifa waxay aragtaa jasiirad xaflad ka socoto waxay arkaysaa buloleer. Markii uu Taraag soo dhawaado ayay waxay irtay buloleerkii kadibna way ka carartaa waxayna isku xirtaa jikada waxayna
fuushaa miis si ay uga baxsato daaqada sare, laakiin Taraag ayaa soo galaya jikada oo soo jiiday. Taraagna waxa uu soo qabsadaa midi, ayadana waxay soo qabsataa digsi. Sayfa way isdifaacdaa oo waxa ay ka dhaawacdaa gacanta, kadibna ku dhufatay digsiga wayna baxsatay. Taraag waxa uu ordayaa doonida yar, waxa uuna iftiisanayaa leyr si uu Sayfa u raadiyo. Sayfa ayuu arkay iyadoo u dabaalanaysa jasiiradda, wuxuuna kaxaysanayaa dooni yar ee xawaaraha badan, wuxuuna soo qabtaa Sayfa. Markii ay xeebta gaartay, wuu garaaca waxa uuna dib u soo saarayaa doonida yar. Moses marka uu soo tooso waxa uu ku xiran yahay kursiga, Sayfana waxa ay ka laalaadaa wiishka biyaha korkooda ah. Taraagna waxa uu ku daadiyaa biyo si ay u soo toosto. Libaax badeed ayaana soo muuqda oo soo carfiyay dhiigga Sayfa, sidaa darteed Taraag ayaa hoos u dhaqaajiyay wiishka. Markii uu libaax badeedku soo dhawaado, Sayfa ayaa la dagaalaysa libaaxa, wayna ka caraysiisaa. Taraag oo caraysan ayaa libaaxa ku dhufanaya bir si uu uga xanaajiyo, balse libaaxii ayaa birtii qabsada oo la carara. Sayfa waxa ay ka soo qabataa libaaxa birta ka hor inta uusan bixin, waxayna u adeegsanaysaa inay ku korto wiishka, laakiin libaax badeedkii ayaa hoos u soo noqda. Taraag ayaa la yaabay, taas oo sababtay inay biyaha ku dhacdo, halkaas oo libaax badeedyadu u soo dhawaanayeen. Kadibna wuu iska tagayaa sababtoo ah Taraag ayaa dhaawacay. Sayfa waxa ay dib u fuushaa doonida, waxayna si qarsoodiya u raadinaysaa hub. Waxay heshay fallaar, waxa ayna ku dhufatay Taraag, taas oo sababtay inuu biyaha ku dhaco. Libaax badeedka weynaa ayaa dib u soo laabta, waxa uuna ku ritaa afka Taraag si uu u ugaarsado. Dhammaan waxa duubay kaamirada, laakiin xarigga ayaa hoos u jiidayay, taas oo sababtay inay Sayfa biyaha ku dhacdo. Waxa ayna u soo dabaalato mar kale dhanka doonta, waxayna soo qaadataa mar kale gantaal Brolair ah iyadoo u rida kor, wayna qaylisaa. Markabka kale ee jasiiradda jooga ayaa digniinaha maqlaya, waxa uuna u soo dirayaa fariin soo sheegaya inuu imaan doono. Mosesna wuu soo toosayaa isagoo sidaas ku badbaaday. Halkaas ayuuna ku dhamaanayaa filimku. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka like, YouTube-kana ku soo biir subscribe.